wararka naga soo gaaraya magaalada Nairobi xarunta dalka Kenya ayaa sheegay in 6 haween ah oo Soomaali ah lagu qabtay lacag kor u dhaafaysa 700 oo kun oo doolarka Mareykanka xalay toole haweenka xalay lagu qabtay garoonka Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi haweenkan haddaba xagee ayay ka soo jeedaan lacagtan lagu qabtayse xagee ayay ka timi xidhiidh ma la leedahay lacagihii Minnesota ee COVID-19 ee kiiskeeda warbaahinta caalamka iyo Mareykanka ay qabsatay iyo waliba Soomaalida xabsiyada ku jiray waxse ma ka ogtahay hay'adda FBI-da Mareykanka oo macluumaadyo dheeraad ah u dirtay Soomaali badan oo deganaa Nairobi Turkiga iyo waliba wadamo kale oo caalamka si loo soo qabto oo lug ay ku yeesheen kiiskaasi lacagta Soomaali badan ayaa ku jirta xabsiyada wadankaasi Mareykanka oo lagu soo eedeeyay lacag musuqmaasuq oo loogu talagalay COVID-19 haddaba macluumaad ku saabsan haweenkan 6 ee lagu qabtay lacagta 700 oo kun oo dollar ee kaashka la soo galay gudaha wadankaasi Kenya ay barnaamijkeena maanta ku qaada dhigi doona hayeeshee daawado intayna barnaamijka u guda galin hadda channelkan ku cusubtayna subscribe saar muuqaalkana la gare asxaabtaada la wadaag ku soo dhawaada barnaamijka haween Soomaali ah ayaa lagu qabtay airportka caasimadda Nairobi ee dalka Kenya ee Jomo Kenyatta kuwaasoo la sheegay in lacag aad u tiro badan soo galin rabeen dalka sidan maalmahan aad kala socoteen warbaahinta waxaa jiray Soomaali lagu eedeeyay inay dalka Mareykanka ka dhaceen lacag gaaraysa 250 milyan oo doolarka Mareykanka kuwaasoo hore FBI-da Mareykanku sheegeen in lacagahaas loo dirsay dalalka Turkiga iyo Kenya ayaa waxaa maanta dalka Kenya lacag qabatay ku dhow 1 milyan oo dollar lacagtaas oo cadadkeedu kor u dhaafay 700 kun oo doolarka Mareykanka oo ay boorsooyin ku wateen haween Soomaaliyeed oo 6 saraakiisha kastamka ee maamulka cashuuraha ee dalka Kenya ayaa sheegay in gegida caalamiga ah ee diyaaradaha ee Jomo Kenyatta Airport ee magaalada Nairobi ay ku qabteen 6 haween Soomaali ah kuwaasoo sitay boorsooyin lagu soo cabeeyay lacag dollar kuwaasoo ku soo hoos qariyay dhar iyo kabo waxaana la sheegay inay ka soo safreen dalka Kenya waxaase la sheegay inay ka soo safreen dalka Hindiya oo ay ka yimaadeen iyagoo la socday diyaaradda Ethiopian Airlines wararka ayaa intaas ku daraya in lacagta la helay kadib markii saraakiisha ay baareen alaab ay siteen haweenkan oo ay ku jiraan kabo iyo dhar waxaana la sheegay inay haweenka isku dayayeen inay dalka soo galiyaan lacag dhan 857,300 oo dollar una dhiganta 103 milyan oo lacagta wadankaasi Kenya oo la rumaysan yahay inay ka keeneen wadanka Hindiya dawladda wadankaasi Kenya ayaa sheegtay in eedeysanayaasha la qabtay xilli ay ka yimaadeen Hindiya iyagoo soo raacay diyaaradda laga leeyahay Ethiopia ee nambarkeedu ahaa ET318 kuwaasoo la sheegay inay lacagta rabeen si qarsoodi ah inay ku soo galiyaan gudaha wadanka Kenya dawladda wadankaasi Kenya ayaa intaas ku dartay in lacagta la qabtay la geeyay bakhaarka waaxda kastamka si loo baaro lacagtan halka rasmiga ah ee loo waday iyo halka ka timi xilliga lacagta la qabtay ayaa ku soo aadaysa xilli dhawaan Soomaali badan dalka Mareykanka lagu eedeeyay inay dhaceen lacagtaas oo loogu talagalay in lagu quudiyo caruurta iyo dadka tamarta yar intuu socday xanuunka koronaha ee COVID-19 lacagta oo ahayd lacag aad u tiro badan oo gaaraysa 250 milyan halka Soomaali badan xabsiyada Mareykanka loo taxaabay warar hoose aan ka helayno lacagtan la qabtay maanta ayaa sheegaya inay tahay lacagihii dabagalka ay ku hayeen laamaha FBI-da ee Mareykanka taas oo loo soo dhoofiyay Afrika oo si loo sii geliyo dalka Kenya iyadoo hore laamaha FBI ay hore u sheegeen in lacagihii laga dhacay Mareykanka gaar ahaan Minnesota lagu maalgashatay dalka Kenya markaasna ay Soomaalidii dhacday ay guryo kaga dhisteen dalka Kenya ee maanta lagu qabtay lacagahan iyo waliba dalka Turkiga oo Soomaali badan ay guryo qaaliya doonyo qaaliya iyo waliba baabuur qaaliya ay ka iibsadeen dhawaan ayay ahayd markii ay dawladda Mareykanku xabsiga u taxaabeen
Soomaali gaaraysa 50 qof kuwaasoo lagu eedeeyay inay lunsadeen lacag gaaraysa 250 milyan oo loogu talagalay in lagu quudiyo carruurta iyo dadka tamarta yar waxaana wali socda baaritaanka iyo dabagalka lagu hayo Soomaali badan oo qabay oo lacagahaasi ay kiiskooda ay ku lug lahaayeen Soomaalida lacagta lagu qabtay ayaa moodaa inuu qayb ka yahay lacagihii lagu dhacay dalka Mareykanka dhanka kale dowladda waddankaasi Kenya wali warcad oo rasmi ah ama faahfaahin kama soo saarin lacagtan cidda rasmiga ah ee leh laakiin laamaha ammaanka ee Kenya ayaa sheegay in lacagtan laga keenay dalka Hindiya markaasna lagu qabtay 6 haween Soomaali oo lacagtan ku watay boorsooyin lagu soo qariyay isku soo wada duuduba maaha markii ugu horeysay oo lagu qabto airport Kenya ee magaalada Nairobi lacago lagu soo qariyay boorsooyin bishii koowaad ee sanadkan ayay ahayd markii dhacdo tan la mid ah laga soo tabiyay garoonka Jomo Kenyatta xilligaasi oo 110 milyan oo shilin lagu helay qof u dhashay dalka Bahrain oo lacagtaasi sitay haddaba waraysi aan la yeelanay wiil ku sugan magaalada Nairobi oo ka waramaya lacagta haweenkan lagu qabtay cadadkeeda 700,000 kor u dhaafay sida uu sheegay ma laga yaabaa in kiis lug leh oo ay dabagal ku hayeen laamaha FBI lagu qabtay haweenka Soomaalida iyagoo kamid ah lacagihii COVID-19 ee Minnesota Soomaalida badan xabsiga ay u galeen marka hore waxa la sheegay inay ka imaadeen dhinacaas iyo dalka India waxayna soo gaareen Kenya maalintii shalay kadibna waa la qabtay markii la arkay inay lacagahan si sharci darro ah u siteen dumarkani waxay kala yihiin Xafsa Warsame Qureysho Cabdi Xasan Carfoon Faarax Cabdi Sahra Umar Xasan Xabiiba Ahmed Hodan Maxamed iyo sidoo kale Carfoon Cabdi ay kala yihiin waxa la qabtay maalinta Khamiista oo shalay ah laakiin maanta ay soo shaxbaxday waxa la sheegay in markii la baarayay qalabkii ay wateen oo lagu arkay wax lagu kadibna baagiyada soo qaaday waa la furay kadib ayaa lagu arkay lacagahan ay wataan waxaan ognahay in Kenya hadda ay ka jirto doolar yari waxaan xasuusanaa madaxweynaha ku-xigeenka dalka Kenya Rigathi Gachagua ayaa maalin dhaweed mar uu la hadlayay TV-ka Citizen wuxuu sheegay in Kenya ay la tacaalayso doolar lee markii la arkay habeenay Soomaaliyeed mise dumar Soomaaliyeed oo wato dollar aad iyo aad ayaa looga shakiyay haddana waa la baaraya waxaan ogaan doonaa halka ay ku soo dhamaan doonto bal marka la fiiriyo lacagtan dumarku ay wateen ama hablahan Soomaaliyeed ay wateen cadadkeeda iyo tiradeeda iyo nooca ay tahay bal faahfaahin naga sii lacagtani waxay ahayd in ka badan 800 oo kun oo dollarka Mareykanka u dhigmato in ka badan 100 milyan oo shilinka Kenya ay dhigmata marka waa wax cajiib ah in la arko qof lacag noocaas ah wato ma ahan markii uu horeysay oo dumar Soomaaliyeed lagu qabto JKA iyagoo sito lacago aad u fara badan waxaan ognahay in Soomaalida inta badan looga shakiyo in ay lacagaha dhaqaan in ay sameeyaan lacago been abuura waxa loo yaqaan fake money marka kadib markii soo baxday baraha bulshada Kenyaanka waxa qabsaday markiiba Soomaaliyeed ceeb iyo sidoo kale dadkii oo sheegayaan in Soomaalida ay ka dambeeyaan in dhaqaalaha Kenya uu aad u siburburayo maadaama ay lacag dhaqayaan maadaama ay canshuur bixinin marka waxay muuqataa in Soomaalida hadda farta aad loogu fiiqayo wayahay marka aan fiirino hadda lacagtaas waaxda canshuur waxay sheegeen in store-kooda geeyeen sidoo kale tan haweenkan xabsiga ayaa loo taxaabay maxaa la filayaa ama talaabada la filayeen laga qaado ay marka hore waxa la cadeyn doonaa halka ay ka soo qaadeen lacagahani maxay yihiin si xalaal ah may u soo qaateen si sharci darro ay u soo qaateen sidoo kale waxa la xaqiijin doonaa in lacagahani ay yihiin lacago xalaal ah waxaan ka wada waxa lacag been abuur ah mise waa real money lacag oo sax ah waaye kadib taas markii la ogaado ayaa waxa la geen doonaa maxkamadda halkaas oo lagu xukumi doono in si sharci darro ah ay lacago u soo gelinayaan dalka Kenya wayahay marka aan fiirino si guud in lacag lala dhoofo oo diyaarad lala raaco oo wada lala maro lacagtii oo cash oo lagu wato jeebka dunida maxay ka tahay ama wadankanba marka hore Kenya waxa la rabaa marka lacag soo qaadayso mise hanti aad soo qaadayso waa inaad diiwaan geliso waa inaad soo sheegtaa tiraado aan lacag noocaas ah ayaan wataa halkaas ayaan ku wadaa lacagtan waa noocan ayaan wataa halkaas ayaan geenayaa laakiin dumarkan Soomaaliyeed maysan soo sheegin oo lacagahan way qarinayeen waxa la sheegay in marka hore ay lacagahan ku soo qariyeen kaba dhaxdooda markii mashiinta la mariyay baaga waxa la arkay kabiye ayaa la arkay kadib ayaa la arkay wax lacag u eg
tii ayaa keentay in laga shakiyo baagii ayaa lasoo qaaday waa la furay kadib ayaa lacagti lagu arkay marka wadanka Kenya sharciga waxaa waaye haddaad hanti soo wado waa inaad soo sheegtaa waa inaad dhahdo waxaasaan wadaa lacag noocaas ayaan wataa hanti noocan ah ayaan soo qaaday xagana ayaan wadaa laakiin dumarka Soomaaliyeed kuwa hadda la qabtay maysan sameeynin sidaas waayahay marka aad fiiriso falcelinta dadka Kenyaanka iyo sida warbaahinta Kenya ay u hadal haysa arrintan ma laga isdhihi karaa wadanka Kenya markaad fiiriso Soomaali nacay badan baa jira xilligan la joogo wallahi Kenyaanka inta badan Soomaalida aad bay u neceb yihiin maadaama Soomaali loo arko inay yihiin dad ka imaaday wadan shisheeye waxay u maleeyaan qof kasta Soomaali ah inuu ka imaaday dalka Soomaaliya ma ogaan in ay jiraan Soomaali u dhashay dalka Kenya Soomaali waligood aan arkin Soomaaliya marka haday maqlaan qof Soomaali waxa lagu qabtay markii way bilaabaan Soomaali nacayb waxay bilaabaan in ay Soomaalida ay aflagadeeyaan maanta mar aan eegay Twitter-ka iyo Facebook-ga waxaan la yaabanaa qaabka ay Kenyaanka u caynayaan Soomaalida waxay leeyihiin Soomaalida waa tuugo Soomaalida cashuur ma bixiyaan Soomaalida wadanka ay burburinayaan marka waxay u muuqataa in Soomaali nacayb aad u balaaran inay ka jirto gudaha dalka Kenya marka aad fiiriso habdhaqanka dadka Soomaalida iyo qaabka ganacsigooda uu u yaalo meel kasta iyo waliba sida ayna inta badan shuruucda u raacin ma la isdhihi karaa in badan oo kamid ah waxyaabaha lagu eedeynayo Soomaalida waa ay leeyihiin Soomaalida marka hore Kenya waxay ku leeyihiin hanti aad u fara badan waxaan ognahay xaafadda Isli ganacsiga xaafadda Isli waa ku dhawaad 1 bilyan oo shilinka Kenya Soomaalida ayaa iskale waxaan ognahay inay ku leeyihiin gobolka waqooyi bari Soomaalida ayaa iskale Soomaalida dalka Kenya kuma ahan marti kuma ahan qayb weyn ay ka leeyihiin laakiin waxa la sheegaa in ay ka dambeeyaan in ay jabiyaan sharciga dalka Kenya laakiin Soomaali kaliya ma ahan hadda Kenyaanka jalwada Kikuyada waxay jabiyaan sharciga waxaan ognahay in William Yiraahdo madaxweynihii hore ee Kenya Uhuru Kenyatta mar badan lagu eedeeyay in uu ka hor imaaday go'aamo ay qaaday maxkamadda waxaan ognahay Maraga markii uu xilka ka dagayay wuxuu sheegay in uu isaga la shaqeeyay madaxweyne aad u jabinayay sharciga u yaalo dalka Kenya marka lacagahan halkay ka keeneen baa la isdhihi karaa markaad fiiriso waayadana waxaa jiray eedeymo Soomaalida in lacaga fara badan Mareykan ay ku dhunsadeen iyo waxyaabo la mid ah xilligii corona marka bal marka aynu fiirino inkastoo Hindiya ka yimaadeen dadkan haddana lacagta cadadka la eg inay wataan oo ay gacmaha waliba ku wataan hay ka keeneen baa la isdhihi karaa marka hore waxaan la soconaa in ay jireen Soomaalidu soo eedeeyay in ay dhaceen lacag soo dhaceen dalka Mareykanka lacagaasi oo loogu talagalay in lagu qoodiyo caruurta sidoo kale arimaha COVID-19 marka waxaa jirto in Soomaalida hadda laga shakisan yahay maadaama caalamka uu aad ula socdo arinta Soomaalida ka sameysay dalka Mareykanka laakiin kuwan ma ahayn sidaasi waxay u muuqataa in ay ahaayeen ganacsato ay alaab ka doontay India waxa laga yaabaa inay alaab geeyeen dalka India halkaas oo ay lacagaan ka soo qaadeen laakiin waan ogaan doonaa kadib markii la geeyo maxkamadda marka aad fiiriso waxaa jira tusaalahan suuqyada sarifka wadankan suuqyada dahabka oo kale Soomaali badan baa ganacsi ku leh wadanka Hindiya u dhoofiya ka soo dhoofiya waxyaabo badan isdaba mariya ma laga yaabaa dadkani marka aynu si guud u fiirino ama ilaa hadda waxyaabaha dawladda iyo waaxda canshuuraha ka soo baxaya KRA aan fiirino in ay dadkani dad masaakiin oo ganacsato oo garasho darri kaliya ay u geysay arrintan inay yihiin mise waxaa dhici karta inay dadkani yihiin dad dambiilayaal oo lacagahan ay yihiin kuwo faalisa ah oo aan sax ahayn oo lagu khalkhalgelinayo dhaqaalaha wadankeena marka hore hada fiirso sawiraha hooyooyinkan Soomaaliyeed waa kuwa masaakiin ah uma muuqdo kuwa ka shaqeeyo lacagaha been abuurta mise fake money-ga waxay u muuqdaan hooyooyin masaakiin ah laakiin Soomaali waa Soomaali lama aamini karo inta badan waxaan ognahay in iyagoo la aaminsan yihiin maskiin yihiin haddana waxa dhici karta in ay haddana noqdaan dad cadow ah waxaan xasuusanaa maalin dhabeed waxa jirtay hooyo Soomaaliyeed oo cunug dhabarka ku sidato ayaa waxay aaday meel dukaan ah halkaasoo ay ka xaday jawaan bariis ku jiray ayay xaday waxaa doobtay CCTV kadib muuqaalkii la soo jaray baraha bulshada ayuu qabsaday marka waxay u muuqataa in Soomaalida hadda la aamini karin oo iyagoo u eg inay yihiin qof maskiin ah haddana ay sameyn karaan waxyaalo sharciga liid ku ah wayahay halkan kala socda daawade caafimaad darro qanjirka xiniyaha ma la ildaran tahay ma doonaysaa mise ka fikiraysaa inaad isqasho fadlan jooji qalliinka aad rabto shirkadda afraad ugu weyn waddankaasi Mareykanka ayaa soo saartay dawadii qanjirka oo complete taasoo aad 3 bilood isticmaalayso ma dareemaysaa daal fara badan kaadida aanad hayn karayn oo suuliga aad kula cararayso manager Saacadiye Xirsi oo muddo badan ka shaqeynaysay arrimaha caafimaadka ayaa markii ugu horeysay bulshadeeda Soomaalida uga faa'iideysay inay helaan dawada qanjirka ragga dawadan oo aad looga isticmaalo dalka Mareykanka
haddaba maanajara Sacdiye Xirsi oo maanajarad ka ah kana tirsan shirkadaasi soona saarta dawadan ayaa bartamihii sanadkan waxay ku guuleysatay in dawadan uu helo qof kasta oo Soomaali ah oo la ildaran qanjirka ragga. xanuunka qanjirka ragga ayaa Soomaali badan ay la ildaran yihiin guud ahaanba geyga Soomaalida iyo caalamkooda. fadlan haddii dhakhtar kugula taliyay inaad qasho jooji qalliinka, ha ku degdegi qalliinka si aad la talin u hesho. daawade waxaad la xidhiidhaysaa maanajara Sacdiye Xirsi ahna saraakiisha sarsare ee ka howlgala kana shaqeeya shirkadan soo saarta dawadan. Sacdiye waxay ka caawinaysaa qaabkaad u isticmaali lahayd iyo sidii aad dawadan ugu heli lahayd goobta aad joogto iyadoo kugu keenaysa bogcadda aad ku nooshahay. Sacdiye Xirsi waxay degan tahay dalka Mareykanka, waana maanajarad ka tirsan shirkadan soo saarta dawadan. haddaba si aad ula xidhiidho maanajara Sacdiye Xirsi, fadlan wac nambarkan WhatsApp adigoo marka hore cod fariina u diraya. Surati